xildhibaan indha gaduud xildhibaankaas wuxuu noqonayaa wasiir duraan axmed faarax siyaasi ruucadaaga axmed taajir baan soo dhaweyn lahaa wax qabtay galdooma jooga aadiya wax qabanaya ugu horeeya haddii wax lay dhiibo cabdirashiid daahir gaboobe iyo ina jeenahaar sakariyo ah la soo celiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda soo dhawaada meel walba aad joogtiin iyo si walba oo aad u daawanaysiin mareeladan official waxaan leenahay asxaabta hore noola joogtay soo dhawaada kuwa hadda nagu soo biiran waxaan leenahay subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta waa dhankiina maantay waxaan ku sugannahay Galdogob waxaan wadnaa su'aalo ama ra'yi aruurin aan weydiinanay degmada marka sida su'aalahaasi siday u dhacayaan waxaan leenahay daawasho wacan jibriil oo ku soo dhawo mareeladan official maanta waxa wadnaa su'aal siyaasadaysan ama ra'yiga maaragtay dadweynaha reer Galdogob waxa ku oranaysaa siyaasiyiinta deegaanka ee nagu matala dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay markaani waa ugu roon yahay ama dadka reer Galdogob waxba u qabtay yaa isleedahay doorashadan ha lagu soo celiyo oo mar labaad codkiisa la siiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم مدن أوفيشال أدب أمها سنتها ولا لا ودوهي سياسيين تكون متلا هير فدرال ديجان كان يجودهان بوتلان أدب أبديين كوا بالشدة ده وحقبتي يكوا ده إني سوى ذاني إنك لأن لقى ورقة بنولي لكن وعقبت في عن لقى عرق وسجود شران لكن waxaa moodaa su'aashaadu inay tahay shakhsi ama labo la jeclaan lahaa in la soo celiyo ka deegaankan ahaan cabdirashiid daahir gaboobe baanu aad u jeclaan lahayn in la soo celiyo waa nin waxqabad wanaagsan waa nin bulshada uu matalo iyo dadka uu matalo si wacan u garanaya waxa uu ku matalanaya garanaya waa mahadsanta cabdirashiid baa leedahay la soo celiyo anigu cabdirashiid baan leeyahay oo aan ku taageersanahay siyaasiyiin kalena waa dhooban yihiin hadda anigu inaan wax ka gala ma rabo waatay daawadayaal wali waxa noo socda barnaamijkeenii aan su'aalaha ku weydiinanay ama ma aragtay qof walba ra'yigiisa ee dadweynaha reer Galdogob soo dhawow adeer adagoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhawow mareeladan official waxaan ku weydiinanay su'aal aan dadweynaha weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa ama ra'yiga waxa jira siyaasiyiin deegaankan ku matala dadweynaha reer Galdogob oo dawladda federaalka nagu matala adigu yaa isleedahay siyaasiyiintaasi wax qabad fiican bay la imaadeen yaa se jeclaan lahayd in loogu celiyo mar kale codkooda la siiyo si ay noo matalaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmed nuur cabdi aadan ahna nin weyn oo hadda waqti jooga oo caadifad iyo siyaasad iyo wax kale ka hadlaynin dadka baarlamaanka golaha federaalka Soomaaliya ku matala leelkase anigu waxaan oran lahaa anigoon badinaynin cabdirashiid daahir gaboobe iyo ina jeenahaar sakariyo ah la soo celiyaan oo lahaa ku soo dhawow mareeladan official adoo magacaaga ku bilaabasid mahaajir ismaaciil daawud mahaajir soo dhawow waxyaabo maaragtay iska maaragtay kaftano oo dadweynaha aan weydiinanay ama wax iska caadiyo oo ra'yiga dadweynaha Galdogob baa ku weydiinanaa waxaan ku oranaysaa siyaasiyiinta deegaanka nagu matala ee reer Galdogob ee dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay way u qabteen reer Galdogob wax way u qabteen yaa isleedahay hala doorto oo sanadkan hala soo dhiso anigu hadda ra'yiga ka hadlo siyaasiyiin hadaan ra'yiga ka hadlo siyaasiyiinta hore oo Galdogob 5 xubnood ama 6 xubnood oo Galdogob u matalisay baarlamaanka dawladda federaalka mid wax qabtay igama muuqdo wax ay qabteen ma arag hadaan xaqiiq ka hadlo laakiin waxaan rajeen lahaa nin kursiga si loogu fariistay yaqaana inaan raadsan hadii ilaahay hadda tribka soo socda marka niman badan baa sharaxan yaa marka isleedahay ninka uu ku soo baxayaa oo hala doorto anigu wadan qiyaasay oo isleeyahay waxaan markaan fiirshay siyaasi ruucadaaga axmed taajir baan soo dhaweyn lahaa axmed taajir aad baa mahadsantahay soo dhawow mareeladan official waxaan ku weydiinanaa su'aalo aan dadweynaha Galdogob weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta Galdogob ee lagu matala dawladda federaalka Soomaaliya
yaa isleedahay degmada waxbay u qabteen yaa isleedahay mar kale hal soo celiyo maya anigu degmada horta nimanka ma kala aqaan been ma sheegi kara laakiin ninkii calanka iyo ciidda iyo dalka iyo diinta ma u jeeda wax ugu yaala ninka ribaha nagu aaday kii shaydaan oo Ruus iyo Mareykan iyo u shaqeynaya Liibiya kii yar ilaahay war naga warshaaf wixii dalka iyo diinta u dadaalaya Allah soo dhaw kaasaan soo dhaweynaa anigu ma aqaan ninkii wax qabada dalka iyo diinta wax u qabanaya ninkaasaan soo dhaweynaa anigu ma aqaan ilaahay baa meesha ku jira oge oo xildhibaanita ka Allah nagu beego sidiisa aad baa maasanta ku soo dhawo Maryaladan official oo magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan degmada dadweynaha reer Galdogob weydiinanay su'aashaas waxa ku oranaysaa waa ra'yiga qofka siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay adiga ahaan degmada waxbay u qabteen yaa isleedahay markan hala soo saaro codkooda hala siiyo mar labaadna matali kara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا أو محسنتهاي مريان محسنتهاي مقاعي عبد الكريم شيخ نذير شيخ هذا ولا فكرك هذا عبره وحن جعلان لها رنتي إن لصو صاره ضد مثله ديجان كجودهان صوماليا ضد له قضية ضد قرنا حقوق الله إن لا إدمدي ضد قرن كره إن بحي مزولة يوم ضد صوماليا وهيان ضد عن ضد شيء كوجرين ما نجعل له إن صباحان وأمد شعبك صوماليات boqolkiiba 99 meel bay taageersan yihiin laakiin xildhibaaniinta hadda sharaxan yaa isleedahay dadkan wax u qaban kara uga cadcad wallahi hadda qof target saaraya ma jira laakiin waxaan isleeyahay mid kasta oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa mid dadka mas'uuliyadaas garan kara ummadda Soomaaliyeed waxay rabaan waayo asagana matala maanta codkayga ku hadlaya maanta ma jiro dad u footeynaya in qof iyo cod noqoto marka damacayga iyo dareenkayga ayaga wada waxaan codsan lahayn mas'uuliyadda ay qaadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku asture inay nimatalaan cidda aan rabnana inay doortaan soo saartaan ma jeclaan lahayd boqolkiiba 99 ummadda Soomaaliyeed meel bay targetkeedu iyo qof bayna jeceshahay ama santa aadam ku soo dhawo Maryaladan official walaalaada magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan weydiinanay degmada Galdogob waxa ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay deegaanka waxa uu qabtay yaa isleedahay markaan hala soo saaro oo xildhibaan kale nagu matalo mar labaad aad baa u mahadsantahay baay waan ku dhawaayay sheego Maryaladan official waxaan is oran karaa waxa maxay ahayd hala doorto cid hadda oranayo kulli ilaahay waa waxa qoray qofkii la doortay kulli way iska soo qoran tahay laakiin waxa oran lahaa duraan mar waxa uu yahay hadii cid la dooranayo duraan hala doorto qof walba wax qabashadiisa kulli waxyaabo oo badan oo uu qabtay degmada uu qabtay way jiraan iyo kuwa hadda waxa uu qaban doona hadii ilaahay idan ka dhigo marka waxa oran lahaa anigu shakhsi ahaantayda waxaan taageeri lahaa duraan aad baa maasanta walaal ku soo dhawo Maryaladan official adigoo magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan dadweynaha Galdogob weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya nagu matala deegaanka yaa isleedahay dadka waxba u qabtay deegaanka yaa isleedahay se mar kale hala doorto oo xildhibaannimaha nagu matalo aniga oo magacaygu yahay Xasan Xuseen waxaan rajaynayaa dadka doorashada ka soo galaya degmada Galdogob ama hore ugu jiray siyaasadda inuu ku soo laabtay ninka la yiraahdo Duraan Axmed Faarax maxaa sababta aan ku doortayna waxay tahay isagoo oo inta yarta oo xukunka ku jiray xagga siyaasadda iyo jagada wasiirnimada yimid magaalada isla markaasna u ballan qaaday degmada in uu samayn doono airport arintaas oo ah horumar deegaanka dalka iyo degmada labadaba marka waxa dheeraad duraan inuu soo baxay aan rajaynaya waxaan kaloo ka rajaynayaa inuu horumarka halka uu ka bilaabo hadda ku ka sii wanaagsan inuu sii wadi doono mustaqbalka ku soo dhawo Maryaladan official Baba Love ma markii ugu horeysay oo channel ka soo muuqdo Baba maanta waxa wadnaa su'aalo aan degmada Galdogob dadweynaha weydiinanay oo ra'yi aroorina waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya lagu matala degmada yaa isleedahay degmada Galdogob iyo dadkeeda waxbay u qabteen yaa isleedahay mar labaad xildhibaannimo waa nagu matali karaan in la doortana way istaahilaan horta deegaankan waxa matalayay 6 xildhibaan oo mid aqalka sare yahay 5 ay aqalka hoos tahay runtii deegaankan horta xildhibaanadii dad qof ka soo laabtay
bulshada reer Galdogob mataqaana la shiray bulshada reer Galdogob maanta la dhigi karo waxba u qabtay deegaankan lixda xildhibaan u matashay khaas ahaan shantii aqalka hoose u matashay waxaan dhigi karaa Cabdishiid Hargaboobe runtii Cabdishiid Hargaboobe waa nin markii loo baahday oo deegaankan ay u baahdeen oo deegaankan ay culayso badan ay fuuleen runtii ka dhaqaajiyay meeshii oo maanta meel fiican geeyay marka waxaan anu dhihi karaa xagga xildhibaanadii lixdaha la doortay maadaama aqalka sare uu soo laabtay mataqaana aqalka hoosena ay shan ay tahay runtii in lagu celiyo Cabdishiid Hargaboobe inta kalena laga dhigo flop laga dhigo waxa kala soo haray hadda siyaasiyiinta hadda raadinaya kursigan runtii marka anu aan qiimeeyo Firdawsi Ismaan Cigaal runtii ayada laftirkeedu taageero haysata deegaankana mataqaana dhalinyarada waxbay qabatay markii la fiirsho wasiir Duraan Axmed Faarax Cali oo wasiirka duulista iyo hawada dowladda federaalka Soomaaliya asaga laftirkiisu wax fiican buu qabtay marka waxaan dhihi lahaa aniga saddexda siyaasi runtii waa saddex siyaasi oo deegaankan mataqaana ay matalaan runtii wuxuu qaban karaa laakiin ragay shalay dhahayay ee geysay iyo awooba geeyay waxaan dhihi karaa in siyaasadda ay saga oo furnaanta kale aan ku sheegay waxay tahay reer Galdogob oo boqolkiiba boqol waxay aaminsan yihiin federaalka marka dadka ergada heerayna waa dad taageersan farmaajo marka ninkii federaalku ay rabaan baa meesha ka soo baxaya wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhawo Maryaladana official waxaan ku weydiinaynaa su'aalo ra'yi aruurina oo degmada Galdogob dadweynaha aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee nagu matala deegaanka yaa isleedahay degmada waxbay u qabteen yaase isleedahay markaani waa mudan yihiin in codkooda la siiyo dacay waa Cabdinaasir Aadan Cabdi kuna inaas dheer faray haddii aan fiiriyo dadka nagu matali kara deegaan ahaan degmada Galdogob waxaan ugu matali karaa Gaboobe Cabdishiid Hargaboobe Cabdishiid Hargaboobe waxqabadkiisu aad u fiican waan ugu matali karaa aad baa u mahadsantahay ku soo dhawo Maryaladana official adoo magacaaga ku bilaabisid waxa ku weydiinaynaa su'aal dadweynaha Galdogob aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay degmada waxbay u qabteen yaase isleedahay mar labaad hal soo celiyo wax qabtay Galdogob ma jooga aadiya wax qabanaya ugu horeeya adigu wax leeyihiin ma garas saasaan u qabaa siyaasi hadda la dhayo codka siyaasi iyo wax kala wada ma jooga adiga on maahane hal oday siyaasadda ku jira jooliya baalki Suuriyan oo farmaajo aad u aaminsan iyo jooga waka marka hadda cid siyaasi oo Galdogob wax u qabatay ma jira wax qabtay ma jira kuwa hadda cusub kuwaas wali wax laga hayo kusoo dhawo Maryaladana official adoo magacaaga ku bilaabisid waxa ku weydiinaynaa su'aal aan weydiinanay dadweynaha reer Galdogob oo ra'yi aruurin ahayd su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay dadkan waxbay u qabteen yaase isleedahay mar labaad xildhibaanimada nagu matalaan codka la siiyo waan dhawahay magacaygu waa Sacdiye Cabdirasaaq intii waxaan dhihi karaa dalka waxa u qabtay haddana u qaban karaa oo codka la siinaya Axmed Taajir ku soo dhawo Maryaladana official walaalo magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo ama ra'yi aruurin degmada Galdogob aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay degmada iyo deegaankaba iyo dadkaba waxay u qabteen yaase isleedahay mar labaad codkooda hala siiyo oo hala soo saaro bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdi Aadan kamid ah dhalinyarada degmada runtii su'aashaad weydiisay Maryan haddaan mala awaal ka bixiyo waqti xaadirkan meesha la marayo hadda qofkii yiraahdo hebel baan taageersanaa ama waxa weeye xildhibaankaas waddanka wax ka qabtay wuxuu gelayaa eex siyaasadeed waxaanu leenahay xildhibaanadii hore oo federaalka oo deegaanka way shaqeeyeen waana la og yahay sida deegaanka shaqadiisa ay ugu kala badnaadeen dadkaana maqraati ka haddaan hadeer niraahno xildhibaan hebel baanu rabnaa ama taageersannahayna waxay noqonaysaa eex waxaanu ku ducaysanaynaa marka ilaahay midkii khayr deegaanka iyo dalkaba ugu jiro inuu ilaahay noo soo saaro sidaasaan ugu leeyahay su'aasha kaga jawaab aad baa mahadsantahay walaal ku soo dhawo Maryaladana official walaal magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan degmada Galdogob weydiinanay iyo dadweynaheeda su'aashaas waxay ku oranaysaa waa ra'yi aruurin siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya kuwii hore iyo kuwa maanta
yaa isleedahay deegaanka iyo dadkaba waxbay u qabteen yaase isleedahay markaani hala doorto oo xildhibaan hala soo saaro markale hala doorto magacaygu waa Shafii Aadan Warsame oo ka tirsan dhalinyarada degmada Galdogob waxaan oran lahaa anigu raggii hore lama u kala qaadayo raggii hore iyo ragga dambe raggii hore waxaan oran lahaa ninka la yiraahdo ina daahir gaboobe Cabdirashiid daahir gaboobe ma aan inta kale waa la cayrinaya mana soo noqonaya sababta waxay qabteen lama arko Cabdirashiid daahir gaboobe soo baxay wax badan buu qabtay degmadu wax u qabtay dadkiisu wax u qabtay bulshadu wax u qabtay wax badan buu qabtay ragga hadda sharaxana de nasiibkooda sanadka dambe la jitaabinaya waxay qabtaan kuwa hadda sharaxan yaa isleedahay codka hala siiyo oo waa matali karaa dadka rag badan baa sharaxan laakiin anigu waxaan taageersanahay generaalka la yiraahdo Axmed Taajir aad baa mahadsantahay ku soo dhawo marayladan oo official walaalo magacaaga ku bilaabaysid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan degmada Galdogob dadweynaheeda weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta ama xildhibaanada degmada ee lagu matala dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay degmada waxbay u qabteen yaase isleedahay adigu mar labaad codkooda hala siiyo oo hala soo saaro kuwii hore iyo kuwa hadda walaal Maryan official waa ku dhawahay waan ugu mahadcelinayaa dadaalka degmada ka muujinaysid siyaasiyiinta degmada ku matala dawladda federaalka ah waxaan ka xumahay su'aasha ay weydiinaysa inaan codkayga bixin karin laakiinse anigoo aragtidayda ka hadlaya markaan fiiriyo hadda xildhibaanada sharxan hal xildhibaan baa anigu hadda codkayga ku aamini lahaa oo ugu codayn lahaa xildhibaankaas wuxuu noqonayaa wasiir Duraan Axmed Faarax oo muuqda 10 bilood buu wasiirka ahaa waxqabadkiisana degmada waa ka muuqda dhan kasta hadday noqoto dhanka isboortiga dhanka horumarka iyo dhan kasta oo ay degmada wax uga baahnayd marka codkiisa aan ku aamin lahaa Duraan Basiin wasiir Duraan Axmed Faarax hala soo saara dhila Duraan la soo saaro irgada waxa uu codaynaysaa waxa ku codsanayaa inay codka siiyaan wasiir Duraan Axmed Faarax ku soo dhawo marayladan official walaalo magacaaga ku bilaabaysid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo degmada Galdogob aan weydiinayna dadweynaheeda su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada ee nagu matala dawladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay dadkan iyo deegaanka waxbay u qabteen yaase isleedahay mar labaad hala doorto oo codka hala siiyo Okay, thank you very much sister horta waxa weeye kuwii horena horta waxa weeye way mahadsan yihiin deegaanka Galdogob iyo dalkaba waxa weeye wax fiican bay u qabteen kuwa hadda soo socdana sidoo kale bidillaahi kariim baan ka rajaynaynaa laakiinse hadda waxa weeye weli ma ay shaandhaysna oo markii hadda dabcan ay soo kala xaraan doorashadayda iyo codkayga marka waxaan siinahayaa aniga unbaa garanahaya laakiinse hadda kama soo tuuran karo waxay noqonaysaa si eex oo gaara marka kuwii horena way mahadsan yihiin kuwa hadda soo socdana rajo fiican baanu ka qabnaa inay dalka iyo dadka wax u qabtaan aad baa marka u mahadsantahay ku soo dhawo marayladan official adoo magacaaga ku bilaabaysid maanta waxaan weydiinaynay dadweynaha reer Galdogob su'aalo ama ra'yi aruurin taasoo ah siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya nagu matala hadaan nahay degmada Galdogob yaa isleedahay degmada waxbay u qabteen yaas isleedahay mar labaad hala soo celiyo kuwa cusub iyo kuwa horeba horta awal ilaahay baan u mahadcelinayaa subxaanahu wa tacaala ka bacdina waxaan salaamayaa dadka ku xiran page-kan iyo dadka hadda ma garanaysaa meesha taaganba waa salaamaya iyo dhammaan degmada cid kastoo degmadan ka soo jeeda oo federaalka umatashana waxbay u qabatay cid kastoo oo federaalka loo doortayna waa dad lagu dayan karo oo wada hormuuda way wada mahadsan yihiin waxaana soo noqonaya ciddii ma garanaysaa ilaahay u karto mid kastoo soo noqdana waa u hambaliyeenaynaa laakiin mid si qaas ah u dhahaysid ma jiro wallahi ma cid si qaas hadda aan u xusayo ma jirto laakiin maadaama anigu aan ma garanaysaa aan odayaasha beejkaana ku xiran mar xogaa gabayda ku turtaan ka mid ahay marka gabay yar baan insha Allah marinay baan xogaa taabanaya gabaygaas wuxuu ka hadlayay niman bari hore kontoneeyada ay ahayd niman Sacuudiga joogay oo ayaa nin waraaq soo diray waxa yiraahdeen war markaan ma garanaysaa aanu helo fasaxa meelaha ay waxaanu aadnaa Lubnaan iyo meelaha u dalxiis tagnay bal wadankii ka soo waraniyo de marka dalxiis iyo garanaysaa la tagana habli baa la soo xasuusanaya ma ogtahay oo markii ninku xagga laga imaanayo ma ogtahay qurbaha iyo ninku gudaha xusday bal gabar qurux badan iyo ma garanaysaa bal habliga ka soo waran baa leeyahay marka nina abwaan oo marka ka shaqeynay radio meesha la yiraahdo radio Hargeysa ka shaqeynayay ayaa waraaqda la soo diray deetana uu gabiyay ninkii marka wuxuu yiri
idinkaa rubaabida tabcaday raasumaalka leh nin riyaalka xoogsaday hadduu run iga doonayo gabdhihii rugtoodana fadhiilana rabaynayay rabdad lama ammaano ee hablihii rarayay gaadiidka raantiiyo dhaclay waa sitaan ruucbta weynaaye gaaroodi rays leh bay kabaha rawada ku hayaanay buu ruuxaaniga iyo balwada kuma rogogaan raggana hadalka ma si guraan kumana raacaan rabdadii kadbaha cawsaska bay raarta geliyaan buu rugtana kama fogaato iyo halkay raas ku leedahay roomaan hay maqashiyo horta rugayaan buu rasminimo wuxuu guursaday oo raali gelinaya rabbaayna leh ee waa jecel yihiin inaan rafiiqaan buu marka ninkaas wuxuu ka hadlayay hablihii ma garanaysaa miyiga oo dee dhaqankii iyo ma garanaysaa hadal raggo ay sarxabibada iska gurna ay ku adkeeyaan iyo maana wuxuu ka hadlayay ninkaasi maana hablahaas ka hadlayay marka nin kale oo rag reer magaalka wuxuu yiri warda hablihii soo laga soo waran baa la yiri islaan reer baadiya gabar reer miyiga ka soo waran laguma oran marka wuxuu yiri wardaanu miyaan ku reer magaalka aqaana anu hablihii hore oo baan garanayaa markaas wuxuu yiri hadda adigu ka hadashay adaguna kuwa naqaana baan ku hadli doonaa buu marka ilaa 8 xood weeye oo macna isku celceliyeen gabaygaas weeyaan mardan xataa intuu ku soo noqdo ninkii markii gabayga hore tiriyay wuxuu leeyahay miyi iyo magaalada hablaha ha u masaynin ee marwar heer ka qaada dhul bay magana joogtaa yabi oo hadda magaaladan waxa ku nool kuwa de wanaagsan oo asxaan badan oo tartiibinaya oo wax kasta leh miyayna way ku dhool yihiin marka intaas aan ugu dhihi lahaa insha Allah cid kasta oo magaalada degmadan ku matashay dowladda federaalka kulli waxay wada qabteen waana rag lagu wada daarka iyo dumarba way maasan yihiin insha Allah salaamu alaykum ku soo dhawo maryadan official walaal adoo magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aalo degmada Galdogob dadweynaheeda aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiinta degmada nagu matala ee dowladda federaalka Soomaaliya yaa isleedahay dowladani ama degmada Galdogob waxbay u qabteen kuwii hore yaa isleedahay mar labaad codkooda hala siiyo oo hala soo saaro walaal waa maasantahay marka koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mahad celinaya siyaasiyiinteena hadda xilku ka dhamaaday oo xildhibaanada ah kuwa wax qabtana waa jiraan kuwa aan dadku degmada waxay ku nool yihiin iyo waxay tahay ka warqabina waa jiraan marka gidiga dhamaanteen waa siyaasiyiinteena oo mahad celinaya marka koowaad marka labaad siyaasiyiinteena hore wax lagu xusi karo kulay xildhibaan kan ila daahir gaboobe iyo Sadiiq Warfaama kulay wax la oran karayo waa laba nin oo deegaanka wax u qabtay oo ka warqaba bulshada reer Galdogob ay matalaan ka warqaba marka yaa isleedahay kuwa hadda sharaxan codkooda hala siiyo oo mar labaad xildhibaan hanu matala iyo kuwa cusub kuwaas walaal hadda ka hor dhici maayo haddaan ka hor dhaco waxa la oranayaa anigu dhanbu u bata aad oo saas daraadeed baan uga hor dhicin xilligeeda la gaaro markii ergadu ay isku tagto annaga noo matala xildhibaanada noo soo saaraysa markaasaan ka wada hadlana aad baa maasan ku soo dhawow maryadan official adigoo magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aal dadweynaha Galdogob aan weydiinanay oo ra'yi aruurina su'aashaas waxay ku oranaysaa siyaasiyiintii degmada Galdogob ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya kuwii hore iyo kuwa haatan cusub yaa isdhigi kartaa degmada iyo dadka waxbay u qabteen yaa isdhigi kartaa mar kale hal doorto oo xildhibaannimada hal lagu soo saaro kuwa hadda iyo kuwii horeba السلام عليكم مركز وايد السلام يا سلام كبعدي لبدا سؤالود أي سؤال شيء مدي هوري وحا أوران كرا يمنك هورا حلوانا كانوا غوي مقالة وحا يوقفتين مقالة الجو ذاتك يدقانك وحا يقفتين مجر إنا وحولا كاتر مركا عدكي سينا أنه قدام بسيدة ويوم قيمها كي ماذا أنا دنيه سوي ماذا لكن واحد ضن ذاتك يدلك أهمو كما يقوان تاسوا كل غلطي هوري قولوا الدمدو هاتنا waxay noqon doonayaan xog aadiyan laakiin waxa cadmin la yiraahdo haatana oran lahayn ninkaas hal siiyo aadiyan duraan Axmed Faarax la yiraahdo aadiyan oo hadda wasiir ah ninkaas waxaan leeyahay balbar sanadka hal lagu eego asagana hal siiyo ninka hal tijaabsha oran lahayn aad baa maasantahay inta way ku soo dhawow maryadan official magacaaga ku bilaabisid waxaan ku weydiinaynaa su'aal dadweynaha Galdogob aan weydiinanay su'aashaas waxay ku oranaysaa xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee nagu matala hadaan nahay degmada iyo dadweynaheeda yaa isleedahay kuwii hore iyo kuwa haatanba dowladda ama dadka ay sheeg reer Galdogob waxbay u qabteen yaa isdhigi karta adiga ahaan mar labaad hala soo saaro oo codkooda hala siiyo kuwa cusub iyo kuwii horeba bismillaahir rahmaanir rahiim
waxa wax wanaagsan waxa igala haashay waa siyaasad xildhibaanka degmada Galdogob aan isleeyahay ugu matalaya waxqabadka xaqiisa waxaan isleeyahay wixii cusub caalamka jecel waxaan soo dhaweynaynaa isbedelka xildhibaan in gaduud in reer Galdogob ay doortaan oo si guud iyo si gaarba ay u taageeraan arintaas oo geesaha kale istaagaan dadka kale in badan wax soo qabtay dhaliilo badanna way jiraan marka waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanka balaasagana aan dhugano salaamu calaykum in gaduud salaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa bahda saxaafadda markaan fakarkayga guud ka hadlana degmada Galdogob waxaan soo dhaweynayaa waxqabadka booliska iyo maamulka degmada iyo shaqada ay hayaan aad baan ugu bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin waana la garab taagan haddaan nahay shacabka reer Galdogob